waayeysa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qofba waayeysa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli markaan ku waayin waxaan ku arki waayaba sidii waaroor hori walac tidhi cadceedii warmihii gantaa lahaa waxa ku siisay dunidii wejigaaga nuurka lihi iibu widhwidhi jirin markaan ku waayin waxaan ku arki waayaba sidii waaroor hori walac tidhi cadceedii warmihii gantaa lahaa waxa ku siisay dunidii wejigaaga nuurka lihi iibu widhwidhi jirin wadiga darreedsho wadiga darreedsho waxa aan wadin isla waayi jiray waxa aan wadin isla waayi jiray ayamahaaga oo wacan waqtigayga uusan ayamahaaga oo wacan waqtigayga uusan inaan wadaa jiraa dabeetana sidii weyliyu dhashay inaan wadaa jiraa dabeetana sidii weyliyu dhashay webiyada kalgacal aan wada dhannaa wadaagna sama wacan webiyada kalgacal aan wada dhannaa wadaagna sama wacan kolley dunida waaya ilay lagama waayo wedka lama huray wax miyay ku gaadheen weli kolley dunida waaya ilay lagama waayo wedka lama huray wax miyay ku gaadheen weli hadalku hadduu iska dhan yahay maxaa anoo hadhay looma hadlee wixii ka hadhay unbaa loo hadlaa sidaa ay odayaasha hore yidhaahdeen kulanka maanta halkan ka dhacay saxaafadan waxa nuxurkeedu yahay haddii aanu nahay beesha faarax maxamuud caaqil xirsi deeriye oo caaqil noo ahaa wakhti dheer annagaa markii horena caaqil ka dhigannay iminkana kalsoonida annagaa kala noqonnay kalsoonidii caaqilnimo waanu kala noqonnay waxaana sababay qodobada ay odayaashii iga horreeyey yidhaahdeen anna haddii aanu iyagii dee sii naxnaaxiyo caaqilku reerka wuxuu dee u egmadaa inuu wixii lagu leeyahayna u doono wixii ka maqanna u doono wixii lagu leeyahayna ka doono nabadoon reerka dhexdiisa inuu ururiyo inuu turxaan saaro inuu dadku waa bashariyo hadduu doono waa iskhilaafaa waa isqabtaa inuu isu celiyo inuu turxaan saaro inuu waayeel ugu ahaado laakiin lama arag caaqil sidii geel col helay colkaa dacalka uu geela ka soo galo in goosta oo la carara waaba wuxuu isu celiyay wuxuu ururiyaa waa isagii baa googooyey waxa dhacday shirki geedkaa ka dhacay ee idla faara
kiisaska lagu shirayo lagu qaybsanayay inuu qayb yiri geed kabaye iman oo ay caddaan ahayd warmiyaanaan reer idla ahayn oo reer idla shirka lahayn baanu xitaa dee soo gaarsiin oo aanan ka mid ahayn reer idle maxay ku dhacday shirka idla faarax ee goobka ka dhacaya inuu caaqilku yiraahdo qaybtaas u iman inuu haddana yiraahdo kiiskii reerka uu bixiyey xilli hore intii lahaydna aan gaadhin inuu yiraahdo ku xidhaya awguratooyinka nooca ee faraha badan leh baanu kagala noqonnay kuna doorannay aadan xaaji axmed oo 2 goorna aanu u doorannay xildhibaannimo haddana xildhibaankeena ahaa wax oo heleen baa yiri waxaan uga jeedaa u kacay halka ay ka qaadeen baa ka qaaday halka ay dhigeen waa dhigay ninka turxaamihiisa odayga iyo waxa anigu geli maayo rag baa galo fandhaaleeyay oo ma garanaysaa dhex geli maayo waxa weeye haddaad dirato wax dirato nin dirato hawl dirato waxaad u diratay inuu kaaga reeyo wax ku taro dabadeedna aad ku eegto waxaanu qoranay beriga hore inuu waxna taro xirsi waana laayay waa nooga daray waxbuu naga dhigay waana kala lumiyey magacayagii iyo moogayagii iyo maalkayagii buumadhuban beel ku tuuray sidaasuu wuxuu nin baa yidhi maxaan isidinka reeyo ka daray waa nooga daray waxaanu istustay inta waxay naga sii dhaqdhaqaaqayaan diiqa baynu nahaye xoolaana aynu jicsin ka haysano dadkana wax sii noolnool yihiin aan wuxuu ka dabaqabatayno oo ka cararo waxaanuna samaysanno waxaynu diranay lawa aragtaanoo gabi oo uma baydhin wuxuu u baydhay googoynteenna iyo gurubaysigeenna iyo guuldaradeennu isaga baydhay aan wuxuu kala caalaysano kala cararno waa kala noqonnay caaqilnimadii aanu ku doorannay markii hore waa kala noqonnay ummadda ilaahay ee maqlaysaa meel dheer iyo meel loo joogtee waa ha maqasho markhaati ilaahay ka ahaato waxaan aanan ka walaacin waa wax dumarka fadheeday waa bashaarada anaga u diidnay waxaana bashaarado waa isla garanay yar iyo way isla garanay يعني waxa uu nabaday iyo balaayada aanu aragnay weey waxaan ay 80 iyo waxya baaqi baan jiray anigu 4 wax baan dheer nin cimrigaygaas oo gole ka hadlaya ma jiro waxay helay baa ikiciyay waxa aan arkay halka ka arkay caaqilkana wallaan u arago bilaan u arago mana maqal mana arag soo wax cusub oo dhaqdeero igu soo baxay waxaan aragnay waa kala noqonay annaga isku garanay waxaanu ku wareejinay oo isla garanay oo saacada wixii laga bilaabo caaqil nooc ah aadan xaaji axmed oo xildhibaana oo kalsoori iyo caqli buuxa iyo qodob buuxda iyo baan ka qabna waa aragnay waa ilaalaynay waana maamulay wax alla wixii uu naga qalluucinaya ma jiraan waa aaminay ninkana haddaanu aaminahayn waa la isku khilaafaa waa kala noqonnay xirsi diiriya cali caaqilnimadii uu hayay beesha reer faarax maxamuud marka hore annaga caleema saarannay waxaanu doorannay arrimaha noocana magta xasiloonida arrimaha reerka ururinta ayaanu doorannay haddaanu nahay beesha reer faarax maxamuud waanu kala noqonnay maanta oo ah bisha 10aad 11keedii taariikhda 2021 ayaanu kala noqonnay waxaanu xilkaa u idmanay aadan xaaji axmed ismaaciil 1 bisha 11aad ayaanu xilkaa u idmanay caleemasaarkii caanashubkii uu yahay insha Allah kariim waxaanu arrimaha noocana magaha uu reerku iska bixiyo gudida uu qortay iyo isagiiba ugu jira maanta xabsi waxa isku soo beegmay sarxaafadan shirka garaa'id ee reerku qabanayay iyo isagoo xabsi ku jira wuxuuna xabsiga ugu jira maga aan reerka lagu lahayn oo hore isaga bixiyeen sida qaayimada ah qaadka inuu magtii reerka lagu yeesho ee hore mag dambo timaado lagu bixiyo tiilayli hore lagu bixiyo inay tadbaynta reerka ka uriyaan midna jeebka lagu qaato oo uu yiraahdo tan inuu iskaga bixinaynaa arrimaha noocaas markii reerku eegay inaanu wadi karin
oo aanu ku wadi karin caqli ahaan waxaan u sheegaynaa cid kastoo qusayso wasiirka arrimaha gudaha maamulka gobolka Sanaag waxaan u sheegaynaa taliyaha qaybta barasaafka maayirka isuduwayaasha arrimaha waxaan u sheegaynaa inaanu kala noqono caaqil xirsi diiriye cali oo aanu noo ahayn caaqil dambe maanta laga bilaabo caaqilo aanu ka dhiganay oo u idmanay ninka aadan xaaji axmed ismaaciil horena uu ahaa 2 jeer ku soo doortay xildhibaan isagoo aanu kalsooni buuxda ammaane xajisnimo maamul isku waditaan dad wadnimo aanu ku dooranay insha Allah ninkaas aanu xilka u idmanay sidaas wax garadkii waayeelka haweenkii dhalinyaradii maanta markii aanu eegnay in badan aanu arinta dibadda ka soo wadnay ka tashanay reerka la sheegaynaa Somaliland iyo haday tahay madaxweyne haday tahay Somaliland haday tahay habar jecelo haday tahay Muuse Abukar haday tahay reerka Baraat Raxmaan ilaa ma bafarooyo ama safaarax beelaba waxaanu u sheegaynaa masiireeyay cuqaashiisa inaanu xirsi diiriye dhowr iyo 20 sano ka hor ayaanu nabadoon ka dhiganay Faarax Maxamuud baana ka wigmari ban Maxamuud kale oo magacawday ma jirin waxaanu ahay Faarax Maxamuud ayaa doortay ayaa magacaabay ayaa keenay wuxuu noqday oday waxba socodsiin kari waayay ilaa ma dhowr iyo 10 sano annagoo sii kala maqan oo iska wato jeeskiisa shaqana aan isku lahayn ayaanu isla ilaahay uu noo diray warba inuu sidii dhaamo annagoo iska bixinay 1000 halaad iyo 70 meel ku wada bixinay oo ila nala mariyay oo aanu nala marin oo shaqo nagu lahayn waxaanu u nisniri amarka ilaahay baa lahaay warba inuu sidii dhaamo warma sidii waaba dhaama wuxuu keenay waaba Maxamuud isku xiriiriyay inuu nadibin daabiyeeba wuxuu keenay inuu yiraahdo qayb ka celiya geedka barkaas uu iman sidii awrkii geela inta xaaska ka haysan jiray gaanaana iri jiray awrta waxa dhacday waxa la yiri agtilay baa la agtilay gaga cidlaabaale agtilay waxa la agtilay gaga cidlaabaale awriyaalaha haduu geela cuno geedku xidhis baale geedkiisa la isku xidhay maanta anagu kuma xidhnaa ka ku xidhan geedkii waxa weeyaan cuqubada uu naga galay geedka leysnimada weey inta waxaan raacinayaa markii aanu isniri warbal inuu sidii dhaamo inuu la kala qaybiyo geedka gardig ka celiya oo madaba waago cuqaalima maqnay haday tahay ilaama chief ilaama suldaanka dibadda ka ogaa ila yiri ka celiya barka dibadda sheekooyin shaaytoona lagu maarag wuxuu ka dambeysay 12 calaamad ka xun inuu yiraahdo kiiska uu reerka lagu leeyahayba inta aan geedka ka celiya baan saarayna waxa dhacday in ilaahay baa xukunka haye cirgaba dadkiiba bad lagu geeyay warna la xisaabtay way iska diiday waxa ilaahay xukmay in isaga lagu yeeshay inuu isagu ku galay ma aanu habaarin anagu ma aanu xidhin xaqa xidhaydee haddana yaa ku fogaan waxaan kaga gudbayaa odayga awowga weeye caayimay habaarina maay caaqil xirsi waxaan ku sheegayaa waa kala noqonay xilkii aanu ku saaray markii hore anaga ahayn haddana adaan lagu kalifay salaam alaykum halkan waxa la isugu nimay munaasabad ku saabsan inaynu kaga hadalno arrimaha reerka oo run ahaantii bariyaha kan soo noqnoqonayay oo waxyaabo badan laga aaminsan yahay sida dadku ka warhayaan waxyaabo badan laga aaminsan yahay oo madax dhaqameedka reerka iyo waayeelka kale ee guurtida iyo guurtida reer idle iyo cuqaashoodu waxyaabo badan ay isla dhaxmarayaan oo dadka qaar aaminsan yihiin reerkaasiba uu kiistiid yahay waxaanu cadaynaynaa marka hore inaan reerkaasi kiistiid ahayn inay kiis aan hore loogu leeyahay aanu jirin kiiskii reer idle uu qaybsaday 600 halaad ahaa inay gacanta ku hayaan wax ka maqan aan jirin reerkaas oo Faarax Maxamuud waayeelkiisina uu yahay ka halkan jooga shirkaana iyagu ay qabteen danna ay moodeen inay ummadda Somaliland gobolka reer idle cid kastoo ay qusayso ay u sheegaan mowqifkooda ku wajahan magta waxa inta raacda waxa jirta mushkilado badan oo iyadana dhex taala reerka ku gadaaman reerku wuxuu leeyahay caaqil buu lahaa
محمود بالورن شري خير دورة بوها عاقل كاس waxa loogu tala galay oo loo igmaday inuu ka shaqeeyo magaha iyo nabadda iyo xaaladaha guud iyo tagaaraba waxa muuqatay inuu caaqilkaasi uu ka baaqday wixii loo igmaday in xaaladihii magaha uu surtaagay inay magtii ka baxsoomi weyday inuu carqalad buuraa uu ku noqday waxaan u sheegaynaa cid kastoo ay qusayso idla faarax wasaaradda daaqiliga gobolka cid kastoo arrinkaasi u quseeyo horta marka ugu horeysa inaanu kalsoonida caaqilnimo kala noqonnay laga bilaabo maanta inaanu wax xilo uu noo hayo aanu jirin caaqil xirsi diiriya kalsoonidii aanu kala noqonnay annaga caaqil ka dhignay reeraha caaqil ka mid yahay baanu ka mid nahay dawladdu ma soo doorano xilkan uma magacaabin reerku isaga reeraha u magacawday buu ka mid yahay waa ku garan weynay nabadgelyadii reerka beesha dhexdeedaanu waa ku qoonsanay inuu wuxuu sameeyey guruubaysi oo hadda guruub buu wataa waxa lambar 1 horta marka ugu horeysa waxaynu arki jirnay niqiino caan lagu ahaa magta caaqilku inuu soo xidhxidho dad uu yiraahdo dadkaasi waa kiistiid laakiin lama arag caaqil isagu mag u xidhan oo loo soo xidho waxa marqaati ka maanta wuxuu yaala xabsi wuxuu ku jira xabsiga garadag buu ku jira wuxuu xidhan yahay isagoo gruubkii wati mag 4 sanadood hadda reerka ka baxsoonay wuxuu xidhan yahay mag reerku bixiyay waxay u xidhan yihiin mag reerkaasi 4 sanadoodba ka sii maqnayd cidii lahaydna aan gaadhin wuxuu reerka dhexdiisa ka sameeyay guruubaysi sidaa awadeed waxaan ku talagalay inaanu samata bixino reerka haddaanu faarax maxamuud nahay waxaanu go'aansanay inaanu kala noqonno kalsoonida caaqilnimo inaanu kala noqonno inuu reerku yeesho caaqil ka shaqeeyo danihiisa ka shaqeeyo danaha nabadgelyada ka shaqeeyo arrimaha magaha loo igmado xilalka wixii allaale wixii waajibaada caaqil leeyahay aanu shaacino maanta caaqilka reerku isku raacay inuu xilkaa u doorto caaqilkii horena aanu sidaa kaga tanaasulno waxaanu shaacinaynaa maanta aanu caaqilkaa shaacinaynaa cid kasta oo ay qusayso baanu ogeysiinaynaa waa shaacintii maanta xilli baanu caleemasaarka iyo caana ku shubka caaqilkaasi muddo ayuu leeyahay caaqilka aanu uu noqdo faarax maxamed caaqil waa xildhibaan aadan xaaji axmed oo muddo dhoweedna aanu u dooranay inuu u noqdo reerka xildhibaan maantana aanu isku raacnay inuu noqdo caaqil iskuna helo labada xil inuu reerka u wada hayn karo waxaanu ku doorannay mas'uuliyad ammaano xijis cadaalad baanu ku doorannay waxaanu u baahnay dee cadaalad waxaa loo doortaa caaqilka inuu cadaalad sameeyo inuu danaha reerka ay u igmadeen uu ka soo baxo caaqilka xirsi diiriye markuu ka soo bixi waayey maadaama uu maantana ugu jiro xabsiga oo ilaahay baa isku soo beegay horta run ahaantii arrinkan muddo dheer baanu soo wadin inaanu xilkana kala noqonno kalsoonida aanu dib ugala noqonno caaqilna aanu ku dooranno muddo aanu soo wadnay ilaahay wuxuu isku soo beegay maanta isagoo magtii aanu bixinay isagu u xidhan iyo annagoo kalsoonidii kala noqon la caaqilnimo waxaanu idiin sheegaynaa dadka u sheegaynaa ciddiina maqlaysa iyo ciddii ay qusaysoba laga bilaabo maanta inaanu xirsi diiriye caaqil noo ahayn haddaanu nahay faarax maxamuud waxaanu idiin caddaynaynaa caaqilka aanu reerka u igmanay isku raacsanay faarax maxamuud inuu yahay xildhibaan aadan xaaji axmed xilliga caleemasaarka inay dhacayso bishan 31 bishan Oktoobar 3 taas maalinta ay dhacayso waa caleemasaarkii caana ku shubkii bismillaahi raxmaani raxiim munaasabadan waxaanu ka cadaynaynaa haddaanu nahay waxgaradkii aqoon-yahankii haweenkii dhallinyaradii iyo dhammaan beesha faarax maxamuud inaannu kala noqonnay kalsoonidii caaqilnimo xirsi diiriye markii aannu kala kulannay dhibaatooyin fara badan oo dhinac walba taabanaya ay beeshu u baahatay caaqil nabdoon oo si wanaagsan hawlihiisa u ururiya islana qaateen oo doorteen aadan xaaji axmed ismaaciil oo ahaa xildhibaankii awalba beesha kalsoonidii markaa caaqil xirsi diiriye cali halkaasaa beesha oo dhammaan
oo leh odayaal haween dhalinyaro carruur waa kala noqonnay bismillaah waxaannu halkan ka caddaynaynaa oo aannu ka shaacinaynaa dano reerku leeyahay oo muddo dheer walandaadi ku jiray taasoo sabab u ahaa caaqilkii la doortay ee xirsi diiriye cali oo dawladaanay nala dooran ee aan annagu reerka u igmannay oo u doorannay marka hore caaqil waxa loo yahay ama caaqilku uu ka hadlaa ama ka taliyaa 4 arrimood 4 arrimood lambar 1 waxa weeye turxaansaarka reerka ka dhex muuqashada reerka haddii alla ku roon yahay shirka reerka qaybinta reerka taas waa lambarka 1 lambarka 2 wuxuu caaqilku ka shaqeeyaa oo hawshiisa ah kiiska lagu leeyahay reerka oo uu ka qaado oo ka ururiyo ka guro marka ay reerka ka soo dhamaatana cid ilaahay uu ku wareejiyo lambar 3 kiiska wixii reerka ka maqan ee reerku leeyahay dhiig iyo dhaqaaqil ee loo igmaday ee uu xilku ka saaran yahay isaga inuu doono gargar baa la tusaaba Soomaalidu ku mahmahdaa wixii reerka ka maqan oo uu doono lambar 4 waxaan lagu lahayn reerka oo aan reerka lagu lahayn oo baadila oo buucda ah oo lagu soo weeraro oo uu is hortaago oo hawlihiisii ah waxaanu caddaynaynaa 4 taaba inuu gabay lambar 1 reerka dhexdiisa ee uu ka muuqan lahaa faraguul baa reerka shafkiisu yaallaa lama sheegin shiruu qabtay iyo ciduu isa soo hortaagay oo reerka ah turxaansaar iyo talabixin mid kasta ha noqotee waxaanu sheegaynaa oo halka ka caddaynaynaa guruubaysi iyo burbur iyo inuu qaybna yidhaahdo caaqil uma ihi qaybna yidhaahdo caaqil baanu ahay oo halkaa reerkii uu dambaska cad kaga dhigo reerkiina ku burburo waxaanu sheegaynaa kiiskii reerka lagu lahaa inuu ururiyo wixii uu soo gaadhay gruubkiisa iyo gruubka kalena uu yidhaahdo gruubkiisa wixii uu ka hayana uu sidii ugu maqan yahay wixii gruubka kale ee uu yidhi caaqilba uma ihina uu yidhaahdo waa ku xidhxidhaya ilaahay amarkii kii uu wax ku xidhxidhayey oo aan lagu lahayn oo dad badan oo madluuba oo halkan jooga galabta ay loo xidhxidhay oo aan lagu lahayn isagii inuu galay oo ugu jiro lambar 3 kiiskii aanu annagu lahayn ee naga maqnaa oo rag badani naga maqan yahay oo uu intaa uu reerka caaqilka u ahaa wax dhintay iyo wax ka horreeyeyba leh oo uu daboolka saaray halkiisiina aan laga raacin welina uu sidaa uu nagaga yahay baaqi oo aan halkiisii laga raacin lambar 4 kiis aanna lagu lahayn oo gudbanihii raacay oo aan reerka lagu lahayn oo baadila inuu rag u xidhxidhay weli la daba joogo mar haddii uu 4 arrimood ee uu xaqa u lahaa 4tiiba uu gabay waxaanu halka ka shaacinaynaa oo ka caddaynaynaa kalsoonidii inaanu kala noqonnay aanuna namateli karin galabta laga bilaabo 11 bisha 10aad 2021 xilkii aanu annagu halkaa saaray aanu kagala noqonnay kalsoonida sababta oo ah mar haddii wixii loo egmaday uu gabay waxaannu doorannay nin ilaahay yaqaan oo aadana yaqaan oo ammaano yaqaan ninkaasoo wixii aanu dhiibannay aanu ku kalsoonnahay sideeda inuu noogu fulin doono nooguna fulin jiray isagoo aan caaqil ahayn uu magta naga marin jiray nagana ururin jiray burburka halkaa joogana aanu haddii uu meeshaa noo joogo aanuna soo gaadheen waxaannu shaacinaynaa oo halkan ka sheegaynaa intaasoo dhan ninkaa waxaannu doorannay 2 jeeroo hore xildhibaan baannu doorannay hawshiisii wuu ka soo baxay haddeer isagoo xildhibaana mar labaad waxaannu doorannay caaqilnimo waa nin aanu ku kalsoonnahay waa nin hawsha aanu ka rabno ee aanu igmannay ka soo baxaya mar hadday sidaa tahay xirsi mar hadduu guruubaysigii isagii galabta ugu jiro ilaahay baa u gartay waxaannu halka ka caddaynaynaa inaanu dib magaha la doonayo waxaa jira kuwa 11 sano naga baxsoomay
xirsi reerka waa ka guray iyo gruubkii uu watay qaybna halkeer ay ku haystaan qaybna meel ay ku suntan tahay lama hayo kiiskii gashigiisii waana dhaafay annaga iyaga haya godobtiisii halkii bay ka laalaadaa mar haddaan ninkii lahaa loo geyn annana nalaga qaaday meelay noogu suntan tahayna aanay jirin waxaannu caddaynaynaa inaanna wax dambe u aamini doonin sidaana uu xirsi caaqil aanu noogu ahayn waxaannu caddaynaynaa kiisaska jira haddeer ee faraha badan ee iid la qaybsaday wixii naga qabtay inaannu muddo hore ururinnay saacad allaale iyo saacaddii la yidhaahdo kiiskii waa diyaar oo reeri iid la diyaariyey inaannu soo taagi doonno isagoo kumbuleedoo dhammaystiran waxaannu halka ka caddaynaynaa ummadda odhan doonta ama tidhaahda waa kiisdiid inaanaan kiisdiid ahayna kiisdiidku uu ku cad yahay ninka maanta isagoo xildhibaan isagoo caaqil ah iyo guddidii uu isagu qortay ee aan lagu kalsoonayn ee maanta ugu jira maqaldhaafka kiiska ay ku bixin jireen ee kaa soo dhaafoo kan intaa ku debero isku buxbuxiskii inay ku fashilmeen halkaa haddii ay marayso annagu xilkii waa kala noqonnay aanu saaray xeersi aadan baa noo haya waxaanu isugu nimi sidii horeba loo sheegay ee guurtidu u soo sheegtay iyo odayaashu ay u soo sheegeen caaqil xirsi diiriye cali inaannu kala noqonnay kalsoonidii aannu u dhiibannay kuna wareejisannay xildhibaan aadan xaaji axmed ismaaciil sidaa darteed oo ay nagu kalliiftay markaannu aragnay reerka waxa ka maqan oo aanu doonayn waxaan lagu lahayn oo u saarayo sidaasaa kalliiftay inaannu kala noqonno xilkii aannu u dhiibannay intaa waxaan ku darayaa isaga oo ka dhex bilaabay guruubaysigaas oo reerka burburiyey badhna yidhi geedka iyo shirka reeridlaba ma iman karaan badhna guri ku xidhaystay sidaa darteed baa nagu kalliiftay maantadaa laga bilaabo sidaasaannu kalsoonidii ugala noqonnay aannu u sheegaynaa barasaabka gobolka taliya qaybeedka taliyaha steeshinka garadag iyo reeriidle iyo wax allaale wixii kale islaam oo ay qusayso inaannu magtaa nala ku eedaynaya laleeyahay waa magdiid inay waxeedii geedka go'an yihiin ay noogu jiraan akoonno 2 3 aannu maalinta reeridle waxay isu keeno aannu dhigayno wabilaahi tawfiiq الليل ملك وابو وينو كلا فوقاني مياكو وشميل ولي وف بوايسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقاني مياكو وشميل ولي